السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشر كاني ويندوز 10 oo taxanaha ahaa casharkan waxaan ku eegaynaa siyaalaha kala duwan aad Windows 10 password ugu samayn karid ama furaha aad ku galaysid qaababka kala duwan aad ugu samayn karid ayaan ku eegaynaa. marka si aad u samaysid waxaad tagaysaa ama gujinaysaa start and isticmaalaha magaciisa ayaad gujinaysaa markaas aad ku gashay computerka waxaad gujinaysaa ama kali garaynaysaa change account settings taas markaas samaysid waxaad tagaysaa sign in options markaas wuxuu ku siinayaa siyaalaha kala duwan oo aad markaas u set garayn kadid qaabka aad computerka ku galaysid oo sida muuqata waxaad isticmaali kartaa haddii uu markaas computerkaaga awood u leeyahay wajigaaga inaad fura ka dhigatid oo markaa biometric aad isticmaalaya inuu computerka sawir ka qaado uu wajigaaga scan gareeyo oo markaas markaad taasad garaysidna mar walba aad computerka kamarada ay wajigaaga qabato computerka markaas isaga ayaa fura ku ah oo saas ayuu ku gali karaa. waxaad kaloo samayn kartaa fingerprint markaas haddii uu computerkaaga ama device-ka aad isticmaalaysid uu awood u leeyahay inuu fingerprint sameeyo oo fingerprint scanner uu ku xiran yahay. hadduusan ku xirnayna waxaad soo gadan kartaa external isagoo ka baxsan USB fingerprint scanner ayaad soo gadan kartaa oo markaas ku xiri kartaa si aad fingerprint password uga dhigatid. waxaad kaloo isticmaali kartaa pin number sida hore usoo aragnay key baad isticmaali kartaa ama USB key ah oo physical ah oo markaas oo inta ku set garaysid furaha computerka markaas aad galisid markaa uu computerku saas uu isku furi karo oo taas ay password ku noqon karo. waxaad kaloo samayn kartaa sida caadiga ah baan hore usoo aragnay password ayaad computerkaaga u samayn kartaa oo password baad isticmaali kartaa. waxaad kaloo isticmaali kartaa sawir macnaha computerkaaga ku jira ama sawiraad markaas kamaradaada ku qaaday ayaad password ka dhigan kartaa. marka kulligood mid aan u fiirinaynaa markaad rabtid inaad wajiga aad ka dhigatid password oo face scan aad samaysid waxaad gujinaysaa meeshaan oranaysa Windows Hello Face markaad taa gujisid waxaad samaynaysaa oo gujinaysaa setup markaa gujisid markaa wuxuu bilaabayaa qaabka ama processka aad ku set garaynaysid wajigaaga inaad computerka macnaha uu akhriyo uu record gareeyo markaas uu xasuusto. marka waxaad gujinaysaa get started pin ka ayuu ku weydiinayaa hadduu markaas computerkaaga pin ku xiran yahay marka pina ku xirna marka waxaan samaynayaa mar labaadana waa bilaabayaa pinkaas ayaan ka qaadayaa si aan idin tuso stebyada oo dhan oo dhammaystiran. marka haddaan pinkiyan ka qaaday haddaan ku noqdo meeshaan Windows Hello Face and setup get started ayaan gujiyey marka wajigayga ayuu akhrinayaa oo hadda kamarada wajigayga ayay akhrinaysaa si ay markaas u xasuusato. marka wuu dhammaystiray oo wajigaygii wuu record gareeyey markaas wuxuu igu khasbayaa inaan pin aan set gareeyo marka pin number marka ugu horeysa passwordka ayaan gelinayaa oo computerka markaan passwordka geliya ka bacdi wuxuu weydiinayaa pin number oo markaas khasab way haddaad fingerprint ama isticmaalaysid ama face scan pin numberka waa khasab oo waxay u tahay backup option ama haddii uu computerka akhrin waayo physical macnaha kamarada ay wajiga akhrin wayso ama fingerprintiga uu akhrin waayo farahaaga markaas second option aad haystaa computerku gashid oo pin number ama password. marka laakiin pin numberka waxay saas ayay ka dhigeen oo way kugu khasbayaan inaad pin number haysatid aad ku set garaysid. marka hadda waxaan face iyo pin number aan ku set gareeyay marka haddaan hadda computerka lock ku sameeyo aan loo gareeyo isla markaaba markaan kamarada wajigayga ay qabato way scan garaynaysaa way xasuusanaysaa marka hal maraan enter taabanaya ama mouse-kan kali garaynaya marka saas ayay
ayaan ku gelayaa oo markaa wejigayga ayaa furihii computerka aan ku geli lahaa ah. sidoo kale haddaa rabtid inaad fingerprint aad ka dhigatid password oo farahaaga ka mid ah ama farahaaga qayb ka mid ah password ka dhigatid, waxaad taabanaysaa ama gujinaysaa Windows Hello Fingerprint, waxaad gujinaysaa setup, get started, pin numberkii ayaad gelinaysaa maadaama uu pin number ahaa, marka fartaada ayaa ku taabanaysaa fingerprint scannerka, markaas next ayaad taabanaysaa, haddana qaab kale ama geeska kale ayaad farta ka fingerprint scanner ka taabanaysaa ilaa 3 ilaa 4 jeer. markaas aad samaysid waa fartaas hadda wuu record gareeyay oo markaas fartaas waxay ku tahay aad hadda isticmaashay furihii computerka ayay ku tahay. haddaa rabtid inaad far kale ku dadid waxaad taabanaysaa add another finger, fingerka kale ayaad ku taabanaysaa oo dhowr jeer ku taabanaysaa, markaas haddana next ayaad taabanaysaa, fartii baad kale ayaad haddana mar kale ku taabanaysaa ilaa 3 ilaa 4 jeer scannerka, markaas saas ayuu fartii labaadna ku program gareeyay oo iyadana fura ay kuga tahay. haddaa rabtid far kale inaad ku dadidna saasaa samayn kartaa oo hal far iyo ka badan waad ka dhigan kartaa, finger waa password waad ka dhigan kartaa. pin numberka horaan u aragnay waad halkanaad ka set garayn kartaa pin number. waxaad kaloo sida aad samayn kartaa USB key processka marka ama qaabka loo sameeyo isku mid weeye. manage aad taabanaysaa, waxaad gelinaysaa USB-ga aad rabtid inaad u isticmaashid fura ahaan, markaas isagaa isu kaa program garaynayaa. stepskaas aan hore u aragnay ayaad maraysaa ama kuwa lamida, marka hadda maadaama aanan USB haysan optionka idinma tusi kara, laakiin waa processka isku mid weeye. sidoo kale passwordka aan sidaan hore ugu aragnaba halkan waad ka bedeli kartaa hadduu computerka aragtid passwordkiisa inaad bedeshid, meeshaan change password waad ka bedeli kartaa. hadduusan lahayn passwordna halkan waad ka set garayn kartaa password. midda ugu dambaysa waxa weeye adigoo markaa isticmaalaya sawir password ka dhiganaya, marka waxaad taabanaysaa meeshaan odhanaysa picture password, marka kaas markaa taabatid waxay hadda u eg tahay in uu horey ugu jiray, marka waa ka qaadaya. wuxuu ku oranayaa marka optionkaanu ku siinaya hadduusan password picture uusan kugu jirin oo odhanaya add, marka waxaa odhanaysaa add passwordka computerka, markaas ayaad gelinaysaa. markaas samaysa waxaa odhanaysaa choose a picture, marka sawir computerka ku jira ama aad kamaradaadabaad ku qaaday markaas ayaad xulanaysaa. markaad sawirkaas xulatid waxaad gujinaysaa haddana use this picture. taas markaad samaysid wuxuu ku sheegayaa inaad 3 jeer xariiqdid oo sawirkaas meel ka mida aad xariiqdid aadna xasuusnaatid. marka meelaha aad xariiqday mar labaad ayuu ku leeyahay xariiqintii soo celi si aad u hubaysid inaad xasuusatid. markaasaad samaysid haddii aad markaas labada jeer aad samaysay xariiqimahaas ay iswaafaqaan congratulations ayuu ku oranayaa, markaas waad dhammaystiray oo sawirkaas wuxuu ku yahay password. finish ayaa taabanaysaa. marka hadda computerka haddaan log gareeyo waxaan ka qaadayaa pictureka maadaama uu haddii aan log ku sameeyo islamarkiiba uu dib ugu noqonayo markuu wejigayga akhriyo. marka haddaan log ka dhigo computerka hadda optionkii ahaa sawirkii ayuu isiinayaa, markaas sawirka ayaan ku geli karaa. haddaan rabo inaan bedelo optionka sawirka aan halkaan oranay sign in options, markaa kaan rabo ayaan xulan karaa oo sida hadda muuqata sawir ahaan aan ku geli karaa, fingerprint ayaan ku geli karaa, pin number ayaan ku geli karaa iyo password. marka kaan rabo ayaan gujinayaa, markaas waa markaa ku gelayaa. marka hadda sawirka waxaa iga rabaa inaan xariiqo 3 meelood oo aan horey u xariiqay markaan sadgareynaya. marka 3 meelood haddaan xariiqo saas ayaan ku gelayaa sawirkaas. marka waa sidaa intaasoo nooc oo kala duwan ayaad u geli kartaa oo furo ahaan ka dhigan kartaa optionka Windows 10 uu ku siiyey haddii ay markaas device-ka aad isticmaalaysid uu awood u leeyahay waxyaalaha aad rabtid inaad passwordka u isticmaashid, oo mar walba awood u leeyahay password iyo pin number. laakiin waxyaalahan kale oo qaybahan kalena
waa options oo hadduu awood u leeyahay aad isticmaali karid si aad markaas computerkaaga password ahaan aad ugu setgaraysid noocyadaas kala duwan. casharka intaasaan ku joojinaya insha allah. casharka dambe waxaan ka hadli doonaa dynamic lock ama sida computerkaaga loo lock gareeyo marka aad ka tagtid, macnaha isaga si automatic isu loo gareeyo mar allaala markii aad ka dhaqaaqdo adoo isticmaalaya bluetooth device ama telefoonkaaga. marka taas waa casharka dambe kaga hadli doonaa insha allah. intaasaan kusoo joojinaya clipkan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.